ayadoo Israa'iil ay sii wado xasuuqa ay ku hayso dadka reer Lebanon ayaa ciidamadan jabhadda gurgurta ee loo yaqaan Xisbullah dib u dagaalameen isla markaana waxaa la sheegay in askarta Israa'iil ay ku laayeen afaafka goobta loo yaqaano deegaanka markaasi Nabtaniya oo kamid ah kuwa lagu dagaalamay koonfurta waddanka Lebanon waa kowdii bishii June 2026 qiimaha badan ee wararkii ugu dambeeyay dunida wacali dhinaca dulansiyaad ayaad maqli doontaan dagaalka aadka u baahan ee Lebanon ayaa ah mid aad u sii qaraaranaya dadkuna waxay ku tilmaameen in uu dagaalku hadirta uu eeg yahay mid hanta hadhula ciidamada Israa'iil ayaa sii wada burburinta iyo dhibaataynta goobo istiraatiiji ay ugu yeedheen oo ay sheegeen inay ku durkayaan saacadda ka dambaysa dagaalku wuxuu eeg yahay in uu gelayo kaalmo aan horey loo arag isla markaana ay Israa'iil ay isku dayso in ay dhul aad xoogan ay ka goosato Lebanon xilli ay si dhab ugu guuleysatay inay gacanta ugu dhigto kooxda dabadhilifka ee waddanka Lebanon dawladda isku sheegta isla markaana wada hadallo ay dhinac kala furtay dhanka kalena ay dadkeedii haanfirayso oo ay si tarab dhigta dhiigga ugu wada darayso saacadii ugu dambeeyay dagaalku wuxuu eegyahay mid sida markaasi sax oo kale isugu xiran isla markaana qaar kamid ah ciidamada Israa'iil ayaa isku dayay inay u daataan dhul ballaaran oo ay isku furaan waxa ay ugu yeedheen waddanka Lebanon qaybtiisa koonfureed iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo goor sii horeysay ku tiraabay in xaqiiqooyinka dhabta ay kamid ka tahay ayaa la yiri in uu ballaarsanayo dhul qaar kamid ah dad goobta ku sugnaa ayaa sheegay in ay saacadii ugu dambeeyay dagaalka dhacay uu ahaa mid jilbaha la isku aastay ciidanka ururka loo yaqaan Xisbullah ayaa markaasi askartii ugu dambeysay halkaasi ku laayay tan waxay ka dhigantay ku dhawaad 30 askari oo dhigta dhiigga u dareen tan iyo intii la soo weeraray Israa'iil ayaa goor sii sheegtay in sarkaal 20 jir oo loo yaqaan Sachin Adam Sarafati uu ku dhintay halkaasi ayagoo uu sheegay in saddex kalena ay garaab yihiin oo xaaladooda ay aad u liitaan qaar kamid ah mas'uuliyiinta goobta joogay ayaana sheegay in dagaalku uu muujinayo in ciidamada ururka Xisbullah wali ay libaysan yihiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa markii hore qirtay in diyaarado drones oo Trapel oo ka yimid dhinaca waddankaasi Iran ay yihiin kuwa ka dhigaya xaaladda mid khatar wuxuuna ku tilmaamay in adeegsiga qaar kamid ah diyaarado drone oo casri ah oo saacadii ugu dambeeyay kooxdu ay adeegsanaysay inay la mid tahay in ay wali toon yihiin wax yarna ay ahaanba ka muuqato ka soo jiijiileedahay kolka ay timaado ay yiraahdeen nidaamka caadiga ah ee ku dagaalamaya ciidanka Israa'iil ayaa kadibna waxa ay sheegeen inay baahinayaan taas ra'iisul wasaaraha fadhiidka maamulka dabadhilifka ay waddankaasi ka jira Nawaaf Salaam ayaa markale waxa uu sheegay iyadoo oo ay la kulmayso xukuumaddiisa carab baahsan oo dalka gudihiisa uga imaanaysa inay isku dayayeen in dadka wixii nool bambaanaya wuxuu sheegay wali in ay isku dayayaan taas isagoo dhinaca kalena ugu baaqay Israa'iil inay miiskooda hadalka ku soo noqoto goortii horeysay iyo dawladda Mareykanka waxay sheegtay in Lebanon iyo Israa'iil ay ku wada hadleen meel isla markaana ay dhowr qadiyadood oo waaweyn ay ka wada xaajoodeen laakiin qaar kamid ah dadka dhaliilaya arrinta ayaa sheegay in waxa kaliya laga wada hadlayay ay ahayd in la isku kaashado ururka Xisbullah laakiin aysan marnaba ku jirin in danta iyo dalka Lebanon iyo sidii looga difaaci lahaa ama looga joojin lahaa xabad aan lagu soo darin dhinaca kalena iyadoo ay qir wali ay isku yihiin Mareykanka iyo Iran iyo Israa'iil oo isla jiraan ayaa waxay u muuqataa inay si aad u xoogan waxyaalaha la sugu haysta ee ka mid tahay Lebanon dawladda Iran ayaa sheegtay in wada hadal kasta uusan macquul ahaa doonin ilaa iyo inta laga ogolaanayo si dhab ah in looga soo daro xabad joojin kasta noocay doonto ha noqotee qadiyadda Lebanon qaar kamid ah wada hadalayaasha dadka u qaabilsan ee saraakiisha sarsara ayaa sheegay taas inay xaqiiq tahay Israa'iil militarigeeda ayaa sidoo kale u sheegtay dad ku dhaqan laba magaalo oo ka tirsan waddanka Lebanon in ay baxaan magaalada Milix iyo magaalada Khifarhunna ayay sheegeen inay dadku ay sida ugu dhaqsaha badan ugu suurtagalsan ay uga cararaan luqadda Carabiga ayaa loogu qoray dadka ayadoo ay tani kamid ka tahay bahdilka ayadoo lagu sheegay inay dadka laga rabo in ilaa iyo 1 mitir meel u jirta ay ka fogaadaan oo u dhiganta eber dhibic 6 mayl sida ay u sheegeen aagagaasi oo ay sheegeen inay baneynayaan cagafyo isdaba socday iyo imkaaniyaad kale ayaa muujinayay wadahadalladii Mareykanka iyo Iran wali waa qariya qar ayaguna waxay ku saabsan yihiin qodobo dhowr ah madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa weeg inuu saxo ka qaban karin go'aanka Israa'iil ee ku aadan inay sii wado dagaalada qasaa iyo kan Lebanon sida la daraadeedna waxay u ogtay arrimuhu inay noqdeen kuwo marka dambaysa karkaarka sii weedaaranaya Iranna waxa ay sutida ugu sii haysaa madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ergada inay markii horeysa qaabilaan in xabad joojin ku wada jirta dhammaan aagaga oo dhan ama furimaha oo dhan lagu daro arinta gacanka istiraatiijiga ah Hormuz ayaa dhinaca kana la sheegay in uu wali u yahay kaarka ugu weyn ee dooda ciyaarta waayo waa kan keenay in ay si ballaaran ay u dhibaatoodo shidaalkuna cirka isugu sheego Iran awoodda ay u yeelatay inay xidho gacanka Hormuz ayaa ka dhigtay dad badan inay isweydiiyaan tani ma saxba qaar kamid ah mas'uuliyiin ku sugan
goobaha wadahadallada sida magaalooyinka Islamabad, London iyo sidoo kale magaalada Doha ayaa sheegay in saacadihii ugu dambeeyay oo dhan ay Iiraaniyiintu ay mar kale adkeynayeen mowqifkooda in iyagu si dhab ah ay u maamuli doonaan gacanka iyo cidda go'aanka ka gaaraysa waxayna sheegeen inay xanaano aad u xoogan oo ballaaran ay ka imaanayaan marba marka ka dameysa baa la yidhi idoodaha Iiraaniyiintu ay miiska soo saareen saacadii ugu dambeeyana waxa ay Iiraan ay sheegtay inay mar kale ay qaaday markaas daldalaad ay ku filisay laba qof oo kamid ah dadkii mudaharaadkii bishii Janaayo soo abaabulay kaasoo looga soo horjeeday dawladda kadib markii lagu ogaaday in ay ka qaateen lacag iyo dhaqaale wadamo shisheeye madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa goor sii horeysay sheegay inay jireen dad ay hub iyo dhaqaalaba siiyeen intii lagu guda jiray abaabulkii barnaamijkii weynaa ee dhacayay dabayaaqadii bishii December ee sanadkii hore 2025 iyo horaantii sanadkan bishii Janaayo Iiraan ayaa wakaalada wararka loo yaqaan Miisaan News Agency waxay ku dhawaaqday in labadan qof qoorta xarig loo galiyay kadib markii lagu ogaaday in ay si dhab ah oo ula kaca ay ula dagaalameen ciidanka ammaanka sidoo kalena ay waxyeelo khasaare weyn ay ugu geysteen hanti dadweyne labada nin ayaa lagu kala magacaabaa Meheradaad Maxamed Yaan iyo Ashqaan Maliki waxaana la sheegay inay kamid ahaayeen dad markaas si diyaarsan oo masaajidka sidoo kalena weerar ku qaaday loo yaqaan masaajidka Jaafari ee bartamaha magaalada Tehran gaar ahaan xaafadda loo yaqaan Gisha wararka ayaa xaqiijinaya inuu kamid ahaa ninkaasi labada nin kuwa si toos ah looga arkayay muuqaalada ayagoo dab qabansanaya masaajidka taasna waxay ku tilmaantay inay shariicada islaamka ka soo horjeedo Iiraaniyiinta dawladda Iiraaniyiinta ayaa waxay sheegeen in ay labada nin ay ugu dambeyntii ay xalay goor dambe barkii xarig qoorta u galiyeen Iiraan ayaa dhowr jeer waxay sheegtay inay dad badan oo sameeyay dambiyo noocaas oo kale aan laga gabangaabsan doonin iyagoo kor iyo hoos ba ugu celceliyay talaabooyinka la qaadayo in ay yihiin kuwo dadka lagu ugaarsanayo Iiraan ayaa goorsi horeysay waxay xukuntay in qof kasta lagu ogaado basaasnimo shisheeye ay tahay in la daldalo ama se lagu sameeyo arrin aan ahayn mid ay ka soo kaba karaan oo si warka u dhigaan ugu dambeyntiina dabashana qiimaha badan qodobkan wararka waxa ay sheegayaan in saacadihii ugu dambeeyay oo dhan ay soconayaan isku dayo kale oo la doonayo in lagu badbaadiyo wadahadallada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyay in uusan rabin in uu si degdeg ah u saxeexo heshiiska isagoo soo kala sheegay hadduu doono uusan saxiix doonin waxa la sheegay in shuruudaha qaarkood ay yihiin kuwa la yaab leh qaarkoodna uu sheegay in xataa ay ku jiraan wadamada kale oo lagu xiray dalalka caalami carabi ayaa ku adkaysanaya Mareykan in aysan ka noqon doonin in yarna in ay si taageeraan hanaanka geedi socodka nabad wax kasto dhacaya waxa uu madaxweyne Donald Trump goorsi horeysay uu sheegay in wadamada caalam islaami laga doonayo inay qaadaan dhowr talaabo oo ay oga markaasi bedelayaan mowqifkoodii dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda Israa'iil ee dibciyaan laakiin ganafka iyo gaashaanka ayaa daruureen warar falanqayn xogaha ugu dambeeya xaqiiqooyinka fahamka heerka sare ee wararka diblomaasiyadda caalamka iyo waliba dhacdooyinka ugu dambeeyay dunida dalalkaasi kala fogaanaya iyo kuwa isku soo dhawaanaya hoygan ugu ballaaran ee warbaahinta Soomaaliyeed afkeena hooyo fadlan nagu soo fiir isla markaana nala daadiyay adiguna gaarsii asxaabteena si ay iyaguna uga faa'iideystaan barnaamijyada iyo wararka tabinta heerka sare ee halkan aad kula wadaagno waa mahadsantii warar falanqayn xogaha ugu dambeeya xaqiiqooyinka fahamka heerka sare ee wararka diblomaasiyadda caalamka iyo waliba dhacdooyinka ugu dambeeyay dunida dalalkaasi kala fogaanaya iyo kuwa isku soo dhawaanaya hoygan ugu ballaaran ee warbaahinta Soomaaliyeed afkeena hooyo fadlan nagu soo fiir isla markaana nala daadiyay adiguna gaarsii asxaabteena si ay iyaguna uga faa'iideystaan barnaamijyada iyo wararka tabinta heerka sare ee halkan aad kula wadaagno waa mahadsantii